السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتكم سو دوادا muuqaal cusub maalmo yar kadib waxay noqonaysaa maalinta ciida ee nagu soo waajahan oo ah maalin farxadeed oo family walba mise qoys walba oo ah maalin farxadeed ay wada sugayaan maalintaas oo lagu yaqaano in ilmaha aad u cayaaraan ciyaartaas quruxda badan oo indhaheen ay jecel yihiin ayaa waxaa laga yaabaa caruur ka mid ah inay ayaga wax is yeelaan oo indhaha wax isaga dhuftaan taasaa keeni karto jug markay canug ka mida guriga uu soo gaaro in farxaddaas oo dhan hal mar ay wareegsato sidaas awgeed waxaa loogu baahan yahay qoysaska Soomaaliyeed dhaawacyada caruurta ay indhaha isku gaarsiiyaan inay aad ugu taxadaraan ay ka hortagaan intii ay ka hortagi karaan taas oo noqon karto waxyaabo ay kaga hortagayaan agabyada markaa iskoolada baaruud oo kale iyo waxyaabo badan oo markaa indhuhu waxay isku yeeli karaan taas oo maalintaas laga yaabo inay maalintaas in farxadda ay qasto farxaddaas waxaa ka sii daran canugii maanta oo farxadda sugayay ishiis markay jug soo gaarto waa khatar aad u weyn oo laga yaabo xitaa dhaawac yar oo indhihiisa soo gaara in araggiisa mise indhihiisa khatar ay soo gasho sidaas awgeed waalidka Soomaaliyeed waxaa looga baahan yahay in ay aad ugu taxadiraan agabka ay u soo iibinayaan caruurtooda midaas markii laga soo tago marka qaar waxaa dhacaysa maadaama caruurta aad u fara badan yihiin adigoo ka taxadara xataa oo agabyo markaa khatar lahayn ay isticmaaleen ayaga qudhowda inay madax isaga dhuftaan isha ama inay ul isaga dhuftaan waxyaabahaas oo inta badan ay ka hortag lahayn laakiin waxyaabaha lagaga baahan yahay ka qoys ahaan Soomaaliyeed waxay tahay maxaad sameynaysaa haddii jug ay soo gaarto cunug indhaha ka soo gaarto waxyaabaha lagaga baahan yahay taasoo ah maalintaas oo kale inay tahay maalin fasax ah oo laga yaabo xilliga hore oo maalintii oo kale inay isbitaalada xiran yihiin loo baahan yahay qaab degdeg ah inaad kula tacaashid taasoo ah haddii canug oo kale ay soo gaarto waxyaabo jug ah ama blunt trauma wax la yiraahdo oo in aad mataqaanaa aad faashad soo qaadatid faashada aad indhaha ka saartid ka bacdi shoota kaga xirtid inta markaa isbitaalada laga furaayo ama xilliga gelinka dambe inta badan waa iska furmataa haddii ay noqoto waxyaabo isha ka galo kalena waxay rabtaa ha noqoto ama aashita ama wax uun had isha ka gasho kalena in aad biyo aad kaga dhaqdid oo biyaha tubada hoos inta geeysa canuga aad si toos ah biyaha aad kaga furtid si waxyaabaha kaga jiro ay kaga daataan kadibna aad ka xirtid marka waxyaabahaasna waxyaabo fast aid la yiraahdo gargaarka degdega oo lidinkaga baahan yahay ka qoys ahaan in aad caruurta xilliga ay ciyaarayaan haddii jug soo gaarsiiyaan aad kula dadaashid fariintaana waa fariin ku socota dhammaan qoysaska Soomaaliyeed ama guri walba oo Soomaaliyeed looga ciidi doono in ay u diyaar garoobaan in arrimahan aad noogu soo laabtaan in ay ka hortagaan sababtoo ah keysaskan waa keys mar walba soo laabto oo ciid walba aan aragno qof canuga gurigiina ka mid ah ama qof familigiina ay jug soo gaarta xagga indhahana telephone numberkayga ayaan hoos soo dhigaya aniga ahaana maalintaas hal il ayaan ku hayaa oo waxaan iska saari doonaa mas'uuliyad in haddii aad ku sugan tahay Muqdisho ay wax soo gaaraan canugana telephone numberka hoos aan soo dhigayo in aad soo wacdiin si haddii gargaar degdeg u baahan yahay loogu fidiyo xagga indhaha intaas ayaan muuqaalkii ku soo gabeynaya haddii aad muuqaalkii ka hesho like saar sidoo kale fariintan asxaabtaada la wadaag waxaan idin rajaa caafimaad iyo nafiyo